السلام عليكم دمانتين وين سلامي soo dhawaada ku soo dhawaada kanaalkayga barashada Englishka waa Suhaib runtii arday badan baa iga soo codsatay oo isoo weydiisay Englishka sidee ku baran karnaa macallin sidee ku baratay anaka sidee ku baran karnaa marka maanta waxaan rabaa 5 different steps ama 5 different ways of the Englishka sida ugu fudud ku baran kartid waxa hubaala 5 kan step haddii aad raacdid inaad 100% Englishka baran doontid haddaba intaan casharka bilaabin waxaad samaysaa buug soo qaado ama mobilkaaga ku qoro 5 step aan idin sheegi doono si aanan hadhow u hilmaamin haye diyaar ma tihiin let's go first number one waa maxay number one waa you have to have a clear goal waa inaad xami yeelatid Englishka haddaad rabtid inaad baratid ma aha just because inaad baratid baa rabtaa laakiin ma noqonayso suurtagal maaha you have to have action waa inaad yeelatid waa inaad ficil yeelatid waa inaad isku dayid inaad Englishka ku hadashid isku dayid inaad Englishka buugaanta akhrisid isku dayid inaad waxyaalo Englishka ka shaqaysid isku dayid you have to have a different action oo dadaal muujisid ku day inaad video Englishka YouTube ka daawatid ama TikTok try to watch English movies ama English filmaanta English ku buuxaan isku day inaad daawatid waxyaalaha Englishka sida wararka kale haddii aad saas samaysid waxa hubaala in Englishkaagu ku kori doono the more aad daawatid maxay ahayd filmaanta Englishka the more vocabulary-gana uu ku balaaran doono and the more you can speak English number two waa maxay number 2 waa maalin walba aan English markaan baran aan English ma horan bartay runtii a long time ago back in probably like an English school English kan aad jiray so that's why English aan ku bartay laakiin markii schoolka aan English kan aadin waxaan sameyn jiray maalin walba schoolka markaan aado waxaan xasuustaa hooyadii baan markaan dadka la soo hadlo ajnabiga markaan la soo hadlo kelmada English igu tuturaan igu caayaan ayaan buug soo qoran jiray then hooyadii baan u leemin jiray hooyo kelmada maxaa laga wadaa af Soomaali baan ku soo qoran jiray waxaan xasuustaa wallahi af Soomaali baan ku soo qoran jiray then waxaan u leemin jiray qof English yaqaana qofkaas ay turjumi jiray saas aan ku bartay that's how I learned English marka waxaa samaysaa maalin walba isku day inaad wararka daawatid amba something wararka qasab ma inaad war daawatid isku day inaad Facebook read something in English read the news read articles marka waxyaalaha English aad akhrisid maalin walba waxaa isku daydaa 10 kelmadood oo English qor 10 new words aad baratay maalin walba 10 kelmad oo English kugu cusub oo baratay buuga ku qor markaad qortid word iyo waxaad qortaa meaning-ka kelmadda iyo macnaheega haddii asaas maalin walba samaysid waxa ku siyaadmaya vocabulary-gaaga and the more vocabulary ku siyaadmo the more you can speak English waa hubaal 100% haddii aad maalin walba saas samaysid waxaan idin hubaa dhammaantiinba inaad Englishka si fiican baran doontid because every day markaad 10 words qortid aad micno u qortid isku dayid inaad aad xifdidid then waxa ku siyaadmaya vocabulary-gaaga and the more vocabulary ku siyaadmo vocabulary-gu the more you can speak English so taa iloobinya maalin walba 10 kelmadood Englishka meel ku qoro number 3 waa waxaad soo bisaa number 3 Englishka aan markaan Englishka baranayo kala camal waxaan sameyn jiray markaan arooti daily routine-kayga qof kasta daily routine buu leeyahay I woke up early in the morning I pray then I eat my breakfast markaan breakfast-ka cuno then I go to my school then I come back maalin walba qof kasta daily routine u gaaray ayuu leeyahay moogtahay so daily routine-kaaga maalin walba aad sameynaysid qor markaad kacdid from the moment you wake up to the moment you come back to home waxaad samaysaa maalinta waxa ku qabsamo dhan English isku dayna ku qortid af English isku dayna ku qortid markaad af English isku dayna ku qortid then read out loud waxa isku dayda inaad kor u akhrisid saad markaad maalin walba samaysid aad kor u akhrisid waxa ku kordhaya self confidence amba kalsoonida isku qabtay ayaa ku siyaadmaysa then the more confidence ku siyaadmo the more Englishkaagu aad si fiican baran kartaa oo the more Englishka aad u hadli kartaa so maalin walba waxaad samaysaa daily routine-kaaga qof kasta daily routine buu leeyahay some people go to the gym some people go to the swimming pool some people go to work dadku way kala duwan yihiin so maalin walba routine-kaaga isku day inaad ka qortid daily journal qor journal markaa qortid then isku day habeenkii markaa xaafadda kusoo laabatid inaad out loud u akhrisid
amba adiga amba asxaabta say markaa maaragtay pronunciation-kaaga lakaaga check-gareeyo. Then haddii aad saas maalin walba samaysid waxaa hubaala in Englishkaaga 100% aad meel fiican ka gaari doontid. Waa iga hubaal. Number 4 waxaad samaysid akhyaaray application waxaa jira English ka caawinaya sida ChatGPT iyo HelloTalk. Yes, ChatGPT iyo HelloTalk. ChatGPT soo iga caawinaya. ChatGPT wuxuu kaaga caawin karaa waxaad suubisaa maalin walba wax ku dhahda ChatGPT English story beginner iyo qor. Story beginner markuu kuu qoro isku day inaad kor u akhrisid. Kor markaad u akhrisid kadib waxaad samaysaa ereyada kugu cusub qor meel ku qoro. ChatGPT haddana markaad akhrinaysid ChatGPT wuxuu leeyahay voice recording buu leeyahay application-ka soo download ChatGPT application-ka. Then voice recording-gaas isku day inaad codkaaga adoo akhrinay story-ga ChatGPT u dir. ChatGPT wax ku dhahda iga sax ku dhahay pronunciation-ka oo iga fiiri ku dhahay. ChatGPT wuxuu kaa fiirinayaa English-ka dhawaaqaysa saad ugu dhawaaqaysid kelmadda. aad iyo aad buu ChatGPT runtii u fiican yahay una ku anfici doona. Ka faa'iidayso 100% waa free ChatGPT. waana the best macallin ever. Ka faa'iidayso runtii. Story-ga markuu kuu qoro kelmad kastoo kugu adkaadana weydii waxaa ku dhahdaa ChatGPT kelmadda ma aqaanin micnaheedu waa maxay asagaa kuu sheegi doona. Then buugga ku qoro. buugga markaa ku qoratid everyday isku day inaad isticmaashid amba story ka sameey amba example ka sameey. waxaa hubaala inaad maaragtay Englishka si fiican baran doontid haddii aad saas samaysid. 100% waa guaranteed. 100% waa guaranteed. Number 5. Yes, number 5 waa maxay? Number 5 waxaad isku daydaa oo ku dadaashaa inaad daawatid filmaanta Mareykanka. filmaanta English. It doesn't have to be American, but English waana noqdaa amba British amba Ireland amba America filmaanta isku daydaa daawatid. Because markaa filmaanta daawatid waxaa ka baranaysaa kelmadaha qaabka lagu dhawaaqo, qaabka ay dadku ugu dhawaaqaan, dadka Englishka u dhashay, qaabka ugu dhawaaqaan. And the more asaas u baratid, the more Englishkaaga uu fiicnaanaya. So waxaa isku daydaa filmaanta English inaad daawatid, subtitle ku daawo haddaad rabtid English with English subtitle ku daawo si aad markaa ula socotid waxay ku dhawaaqayaan iyo micnahooga. The more aad filmaanta daawatid, the more waxaa ku kordhaya vocabulary-ga Englishka. And the more vocabulary English ku kordho, the more you can speak English. Welibana YouTube-kayga channel-kayga waa aragteen waxaan soo dhigaa filmaan short aan soo dhigaa oo Mareykana hoosna waxaan kusoo qoraa Soomaali subtitle Soomaali kusoo qoraa si u fahantiin. marka YouTube-kayga channel-ka subscribe dheh si aad ula socoto waxyaalahaas oo kale inay ku dhaafin. waxaas oo kale aad bay muhiim u yihiin. aan waxaan soo dhigaa videoyaal filmaan baan soo dhigaa filmaan markaan soo dhigo subtitle-ka af Soomaali kusoo qoraa si u fahantiin si wax ugu baratiin. So akhyaaray subscribe dhaha, please subscribe dhaha. asxaabtiin Englishka barantan wala wadaaga because runtii way ka faa'iideysanayaan idinkuna ka faa'iidi doontiin. teeda kale book insha Allah book ayaan soo wadaa book English lagu baranayo oo dadka Soomaalida loogu talagalay oo barashada Englishka wuxuu leeyahay A1 A2 B1 B2 different stages buu kala leeyahay. marka insha Allah marka book aan dhameeyo wali waan wadaa waan soo dhigi doonaa YouTube-ka wixii raba inay download gareystaan way download gareysan doontiin. asxaabtaada wala wadaaga fadlan YouTube-kana subscribe dhaha because waxaan rabaa video badan inaan idin soo dhigo qaabkaad English u bari lahaydeen oo sida maaragtay ugu fudud English aad ugu baro. The more maaragtay aad videoyasha daawatina the more Englishka aad baran doontiin. So please make sure to subscribe to my YouTube channel. Make sure to follow my TikTok page. Make sure to follow my Instagram page and make sure to like this video. Make sure to share this video with your family and friends. Please runtii I will appreciate a lot haddii aad asxaabtiin ula wadaagteen videogan because dhiirigelin bay noqon doontaa so I can upload more videos in the future si aad maaragtay uga faa'iidaan channelkayga. aad iyo aad baa runtii umahadsantihiin. aad baan idin salaamayaa. Please make sure to subscribe, like, share.